hal mar ayuu caalamku si lama filaan ah ugu baraarugay warka ah in muqaawamada dalka Suuriya ay la wareegeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Suuriya ee Xalab. Dagaalkii ka socday waddanka Suuriya 12 sano ee la soo dhaafay loona haystay in uu qaboobay 4 sano ee la soo dhaafay ayaa dib u bilowday kadib markii muqaawamada ama iska caabinta dalka Suuriya dadka qaarna ay ugu yeeraan falaagada ama mucaaradka ay muddo kooban kula wareegeen dhul aad u ballaaran welina ay ku sii siqayaan. Muqaawamada oo ah kooxo fara badan oo isbahaystay ayna ugu weyn tahay xarakatu taxriir ayaa la dagaalaya maamulka Bashaar al-Assad iyo xulufadiisa. Haddaba waxaan doonayaa inaan faahfaahiyo waxa uu ku saabsan yahay dagaalkan, dhinacyada uu ka dhaxeeyo iyo sida wax u socdaan. Dalka Suuriya waxaa ku dagaalamaya in ka badan 20 kooxood oo midba wax u dagaalamayo, midba uu ujeedo gaar leeyahay, midba uu qayb waddanka ka haysto. Dagaalka waddanka Suuriya wuu isbedel badan yahay, wuuna dhinacyo badan yahay, wuuna wajiyo badan yahay. Kooxaha isdagaalaya qudhooda marba qaab ayay isaga soo horjeedaan, mararka qaarna qaab kale ayay isula jiraan. Qaar badan ayaa magacyada bedesha, qaar badanna kooxo kale ayay ku biiraan, kuwa kalena way furtaan. Guud ahaan dagaalku waxa uu ka dhaxeeyaa maamulka Bashaar al-Assad oo xulufo badan wata sida Ruushka, Iiraan, Xisbullah, maleeshiyaad tiro badan oo kala duwan oo kala nuuca oo kala ujeedo ah, kala waddan ka yimid, iyo kooxaha muqaawamada oo nuucyo badan isugu jira, midba ujeedo gaar leeyahay, midba quwado kale ay taakuleynayaan. Dagaalku mar waa diin ahaan, marna waxa uu ku saabsan yahay xukun, mar waa Shiico iyo Sunni, marna waa qowmiyad iyo kooxaysi, mar waa reer galbeed iyo reer bari, marna waxa la isku haystaa kheyraadka waddanka. Haddaba si aan u faahfaahiyo waxyaalaha socda, waxaan doonayaa inaan dib u laabto wax yar si aan u fahno sida wax u socdaan. Madaxweynaha nidaamka Suuriya Bashaar al-Assad iyo aabihiis waxay waddanka ka talinayeen muddo ka badan 50 sano. Bashaar al-Assad iyo aabihiis Xaafid al-Assad waxay ka soo jeedaan qoys Calawiyiin ah ama Nusayriyiin. Calawiyiintu waxay waddanka Suuriya ka yihiin wax ka yar 10%, halka Sunniyiintu ay ku dhow yihiin 90%. Haddaba Calawiyiinta oo ah dad laga tiro badan yahay ayaa waddanka ka talinayay muddo 50 sano ka badan. Calawiyiintu waa koox Shiico ah, nooca loo yaqaano qulaada, oo culammadu inta badan sheegaan in ayba yihiin diin gooni ah, maadaama Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ay u aaminsan yihiin inuu yahay nooc ilaah ah. Laakiin maanta mowduucan arrintaas ma quseeyo. Haddaba Xaafid al-Assad Suuriya wuxuu xukumayay muddo ku dhow 30 sano. Marka uu dhintana wiilkiisa Bashaar ayaa ku wareegay. Asagana marka uu waddanka ka talinayay 10 sano waa 2011 wadamada Carabta waxaa ka kacay wax loogu yeeray guugii Carab. Wadamo badan oo Carab ah ayaa shacabkoodu ku kaceen dadkii muddo dheer xukumayay sida waddanka Jazaa'ir, Masar, Liibiya, Yemen iyo wadamo kale. Haddaba Bashaar al-Assad waa lagu mudaharaaday. Xasuuso Bashaar al-Assad iyo aabihiis labaduba waxa ay ku caanbaxeen dhibaateynta dadka Sunniyiinta ah, waxayna geysteen intaas oo gumaad. Kumanaan qofna way laayeen, kumanaan kalena way xireen, kumanaan kalena meel ay ka baxeen waa la waayay. Daba iyadoo arrintaas jirtay, dad shacab ah ayaa ku mudaharaaday inuu xukunka isaga dego. Laakiin Bashaar al-Assad dadkii shacabka ah wuxuu u adeegsaday awood oo in badan ayuu ka laayay. Dadka marka hore ku mudaharaaday ninkaas waxay u badnaayeen dad reer galbeedku taageerayeen oo ahaa dad isbedel doon ah. Markaasna waxa ay ka hadlayeen inta badan dimuqraadiyad iyo doorasho iyo xuquuq iyo waxyaabo la mid ah. Laakiin markuu awood u adeegsaday, arrintu waxa ay isu bedeshay gacan ka hadal. Kooxo badan ayaa ishubeeyay oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah ciidamadii qalabka siday ee waddanka Suuriya. Halkaas ayuuna ka bilaabay dagaalku sanadkii 2011. Maalintaas wixii ka dambeeyay, maalinta ka dambaysa dagaalku wuu sii xoogaysanay. Kooxo cusub ayaa sameysmay, muqaawamadu way sii xoogaysanaysa ilaa iyo heer waxa ay gaartay laga taqalusi rabay oo ay muqaawamadu soo qabsatay 70% waddanka. Bashaar al-Assad waxa uu soo hiiliyay maleeshiyaad aad u fara badan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda sida Iiraan, Ciraaq, Lubnaan ilaa iyo Pakistan iyo Afghanistan. Waxa uu soo hiiliyay dowladda Iiraan, Xisbullah, al-aakhirna Ruushka ayaa u soo hiiliyay. Bashaar al-Assad wuxuu bilaabay inuu shacabka si toos ah ula dagaalamo, inuu laayo, inuu xasuuqyo badan geystay, inuu xataa adeegsaday kiimikooyin noocyo kala duwan ah. Waxa uu laayay dad ka badan 5 milyan, waxa uu kaxeeyay dad ka badan 12 milyan. Al-aakhirna
isagoo garabka helaya Ruushka waxa uu ku guuleystay inuu muqaawamadii dib u riixo oo dib u qabsado waddanka ugu yaraan 60%. haddaba 4 sano ugu dambeysay xaaladda waxaa la dhihi karaa way yara deganeed, saxaafadda caalamkuna way ka sii jeeday oo arrintaas aad loogama hadli jirin. laakiin si lama filaan ah ayaa muqaawamadu waxa ay maalmo yar gudahood ku qabsatay dhul aad u fara badan, iyadoo la sheegayo inay maalinta ka dambeysa sii qabsanayaan dhul hor leh, iyadoo oo ciidamadii Asad iyo maleeshiyaadkii kaalmeynayay ay isaga baxeen furinihii dagaalka. haddaba waan fahamnay Asad, Ruushka, Iiraan, Xisbullah iyo maleeshiyaad aad u fara badan oo ka kala yimid dunida dacaladeeda oo dhinaca. haddaba dhinaca kale yaa waay dhinaca kale. dhinacan marmarka qaar la leeyahay waa muqaawamo, marmarka qaar la leeyahay waa falaago, marmarka qaar la leeyahay mucaarad, marmarka qaar la leeyahay waa argagixiso. maxay yihiin? horta waxaa ogaataa dagaalkan waxaa ku jira in ka badan 10 kooxood. kooxahaas isku ujeeddo ma aha, isku meelo kama dagaalamaan, isku taariikh ma aha, way bataan, qaarba dhinac ayay ka soo dagaalamaan, ujeedooyin kala duwan ayay u dagaalamaan, way isku biiraan, way kala jabaan, magacyada ayay beddeshaan, qaarkood quwado kale ayaa soo dhex gala oo laaya, qaarkood waxay ku eedeysan yihiin inay yihiin argagixiso iyo waxyaabo la nuuca, qaarkood waa qowmiyiin doonaya inay gooni u goostaan, qaarkood waa mujaahidiin, qaarkood waxay doonayaan inay waddanka xukumaan, qaarkood waxa oo kaliya ay doonayaan inay guryahooda iyo dadkooda difaacdaan. kooxahaas kala duwan dagaalku midba weji ayuu leeyahay. dagaalku mar waa sunni iyo shiico, mar waa Ruush iyo Maraykan ayaa kala taageeraya, mar waa caqiido, mar waa qoomiyad, mar waa asal raac, mar waa hiir raac, mar waa Turkiga oo ka soo horjeeda Kurdiyiinta, mar shidaal iyo kheyraad ayaa la isku haystaa, qaar waa xukun doon, qaar waa dulmidiid, qaar dimuqraadiyad ayay u dagaalamayaan, qaarna shareeco ayay u dagaalamayaan, qaarkood waa isla shaqeeyaan, qaarkoodna waa islaayaan, qaarkood waxaa taageera Maraykanka, qaar waxaa taageera Sacuudiga iyo Imaaraadka, qaarkood waxaa taageera Turkiga. laakiin inta badan markii aad isku darto guud ahaan muqaawamada oo dhan intooda badan waa sunniyiin. dhinaca kale oo Asadna waxay u badan yihiin shiico. waxaa intaas soo raacay 10 kooxood oo yaryar oo ka kala dagaalama meelo kala duwan. haddaba waxaan kusoo koobayaa kooxdan qabsatay magaalada Xalab. horta waa kooxo badan oo isu tegay, waxa ugu tun weyn ayaa la yidhi kuwa loo yaqaano xarakatu taxriir shaam oo lagu qiyaasay ugu yaraan inay haystaan 30,000 oo askari. haddana waxaa la sheegayaa inay hub aad u fara badan ay ka heleen Xalab oo ay ka mid yihiin gantaalaha lidka diyaaradaha, xataa diyaarado iyo gawaari gaashaaban oo aad u fara badan. waan arki doonaa meesha ay ku dhammaato maalmaha soo socda iyo halkii ay gaaraan. intaas ayaan kusoo koobayaa. haddii mowduucaasi wax macnaha uu kuu sameeyey fadlan subscribe.